السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين وضع السلامي أصحاب تيدا سومالي وين ما يقول بقدونك إكتشوكتو ولا شيء ملكي أو إذا له كسر دوادا channelka ملكي دائما يفهم الكيدا ما يقول بقدونك إكتشوكتان. ما أنت أنا نقول قلين كليب كيك عصب يموضوع عن وطبة دو الله يراهدو واحد شعلان لها أصحاب تيدا إلى تشوكتا aad baad u mahadsantihiin saad ii sharafteen ilaahay ina sharfo inta igu soo biiraysana oo ma aragta channelkaygu ku cusub yahayna waxaan jeclaan lahaa subscribe-ka inaadan iloobin like-ta iyo share-ta waayo waxa weeye meel fog hadduu gaaro dadka waxa weeye waxyaalo badan ayay ka faa'iideysanayaan maanta mawduucayga ugu muhiimsan waxa weeye oo aniga ahaantii runtii mulki ahaan isweydiiyo oo Soomaali mujtamaciina Soomaali markay maxaa la yiraahdaa ninka iyo naagta ay dad waaweyn noqdaan over 50ga mise 60ga 60ka ay gaaraan maxay naagta ma aragtay ninkeeda ay u soo dhaweyn wayso isla markaasna muxuu ninka u naakala la raadsadaa waa su'aal calaamad su'aal waxa weeye waa su'aal oo calaamad su'aal saaran tahay runtii oo qof walbana jecel inuu isaga intuu fadhiisto meel inuu isweydiiyo inkastoo ay waxaan ay yihiin wax dhaqaniyana oo dee abka iyo waqti hore la isticmaali jiray laakiin kolley waa dhaqan xun runtii waxa keenayana qoysaska burburkiisa waa waxyaalahan naagta markay weynaato ay kontonkii kor u dhaafto waxay leedahay ani waxa weeye qof weyn aan noqday waxa weeye ninna uma baahni ilmana waan dhalay ilmahay sii dhaleen ayaa koritaan igaga baahan marka ninkii xuquuqdiisii iyo ninnimadiisii oo dhanba waxa weeye waa la iloobaya oo naagtii waxaaba laga yaabaaba inay tiraahdo ani qol gooniyaan seexan mise ani caruurtaydan la seexan kadibna taasna keenayso in ma aragtay niyadjab ninkii ku dhacayo oo ma aragtay at least xataa noloshaas dadka iyagooba galmo iyo waxba ay sameynin haddii xataa ay naagta jilecdo oo ay ma aragtay qof weyn noqoto waxa wanaagsan ninkaagii intaa nolol waqti dheer aad isla soo qaadateen in ma aragtay xataa naxariis uu kaa dareemo xataa ma aragtay sariirta ma aragtay aad ku soo dhaweysid xataa ilaa intuu ma aragtay tiis u imaanayso dee aad u dareemo daryeel zaa'id ah laakiin haddii ninkii la iska xooro mise la fogeeyo oo la yiraahdo dee ninka waxa weeye waqtigiisu uu dhamaaday nin qof weyn noqday isaga waxa weeye qof weyn noqday waa dhibaato maanta xaafadeena waxa laga hayaa dhismo marka saa awgeeda ma aragtay qaylo yara jirto laakiin insha Allah waxaan jeclahay inuu soo gaaro ma aragtay hadalkayga wallahi waa dhibaato runtii marka ninkiina isla markaasna uu raadinayo in ma aragtay uu naag kala raadsado uu iska dhaadhicinayo in ay naagtii ay rabin mise ma aragtay naagtii ay iska fogeysay marka taasaa keentay inta badan 19% raggeena Soomaaliyeed markay da' noqdaan inay naaga kala raadsadaan marka hooyo kasta mise naag kasta oo nin qaba markay da' isla gaaraan waxa wanaagsan in ma aragtay ninkaaga aad ku dhigtid ninkaaga saa adiga maalintaad cadradda aad ahayd maalintaad uu ku soo aroosay saad ahayd waxba iska bedelin oo ma aragtay quruxdaadii oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa nadaafadaadii adoo cibaadeysanaysid adoo ma aragtay maxaa la yiraahdaa oranaysid waxa weeye hadda waa inaan u arooraa say sheegaan dumarka Soomaaliyeed waa weyn yani waxa weeye waqtigii aan u aroorayay dhinaca ilaahay weeyaan ilaahay kuma diidayo ninkaaga waa ninka kaliya aad ku janno galisid waa ninka kaliya ma aragtay aadna ku naargalisid marka xaqa ragga waxa weeye waxa wanaagsan in xaqa wallahi nin ma hadii si wanaagsan naagtiisa uu ula dhaqmo ani ma oran lahayn waxa jiro nin naagtiisa ka taga mise la aroosa waayo inakoo wili da' gaarin ayaaba markay ku arkaan inta badan mujtamaca Soomaaliyeed naag ninkeeda u dhawaanayso mise waxa weeye la kaftamayso mise la ciyaarayso mise soo jiidayo mise gacanta uu haayo waxa weeye waxay la tahay wax weyn taasna waxa keenayso
waa xadaarada oo nagu yar runtii wadamada carabta waxaad arkaysaa way isku gaboobayaan ani carabtan kusoo koray carabta intaan kusoo leegaaday wax laysla yaabaya runtii ma jirto oo waxa weye qof walbaba waxay u arkaan wax caadiya dad nolol wada samaysto intaa soo wada noolaa talabaadnana waxaan ka yaabay aan isweydiiyaan qof bini aadan ilmaha yar oo saqiirka oo 4 jirka ah kama qarsoono naaginin waxay isku aroosayaan naaginin guri waxay iskugu soo xirteen waxay isku aroosayaan ilmo u dhalayaan qof walba oo sariirta lagu sameeyay qofka wax ka qarsoon malaha wax weyn ma aragt in laga dhigo hayaay naag yar iyo nin yar ma aragtay gacan is haysta mise nin iyo naago jecel wada matalay mise nin iyo naago mujtamaca la soo istaagay oo tusay jecelkooga in ma aragtay ay is jecel yihiin hayaay bunka in la wada ma aragtay in la wada yeeriyo waayo waa caadi waa wax natural ah wixii oo sariirtaas iyo wixii aad sameynaysid taasa ma aragtay mamnuuca oo ma aragtay qalad ah runtii laakiin wax caadiya oo ninkaaga ma aragtay meel hadaa la fariisatid kafee la cabtid gacanta isqabsatiin ma aragtay alla baashaashid oo aad ma aragtay u soo dhawaatid aad dareensiis inuu nin raga yahay isna uu ku dareensiiyay inaad the best woman aad tahay naagta ugu fiican naagaha oo meeshaas jaceylka uu waaro jaceylkii uu siyaado oo ilmaha meesha ka dhashay ay noqdaan ilmo caafimaad qaba ilmo jaceyl ku abuurmay ilmo ma aragtay dhibaato aan arkin ilmo aan arag allahumma salli ala maxamed hooyo iyo aabbo ishiifayo ilmo arkayo mar walbaba hooyo iyo aabbo hoos iskaga jiro oo ma aragtay jecel ilmaha waxa ka soo baxayo saa horeba ugu sheegay yani qoyska waa mujtamac yar waxaa meesha kasoo baxayo mujtamac aada u wanaagsan caruurta waxay eeganayaan waalidkasay u dhaqmayaan ilaa ilmihii ma tusisid maogtahay adoo galmoonaysid ma tusisid ilmihii adoo waxun sameynaysid just waxaa tusisaa ilmihii in waalidkii iyo hooyadii aabihii dad habi isku ah oo isku faraxsan oo isjecel inay yihiin markaa soomaaliyay dadka ha ku mashquulina dadka waxa weeye dadka isjecelna ha kala dilina dadka isjecelnana maasha allah dhaa runtii waxaa nagu yar waxa la yidhahdo maasha allah waxaa nagu badan dadka xaasidka ah waxaa nagu badan dadka ma aragtay aan caafimaadka lahayn oo maanta dhanko manadyo iyo waxa aan loo joogin ma aragtay qorayo dadka qoysaska kala duminayo dumar usoo jeesta keliya ma aragtay in naag nin dhaqanayso ninkeeda ma aragta loogu yimaado waxa weeye ilaahay wuu badiyay madowad helaysa oo gaduudad helaysa oo casaanad helaysa oo jaalad helaysa oo nooc kastaad helaysa dhan jidkaasay wada socdaan marka gabar walaashaada guri ay dhaqanayso mar walba maasha allah ha la yiraahdo runtii oo ma aragtay yaa laga maseero oo jalasnimada iyo maseerkan faraha badan hala joojiyo horena waa oga hadlay muku cajabin waayey dadkan say u dhaqmayaan forget about iska ilow iska gudbi ka soco nan maahan inaad ku mashquushiin waad fahamtay soo maahan talabaadnana ragga ha loo naxariisto naag walba gudahay ka oynaysaa naag walbaba way dhibaataysan tahay naag walbaba godkeeda biyo ugu galeen waxba jalas ha ka noqon naag facaaga ah naagta facaaga ah iyadaa guriga samaysatay iyadaa guriga ninkeeda iyo iyada iyo qoyskeeda iyadaa haysato adiga samayso araxda ma la-id lugaha ma la-id gacmaha ma la-id maxaa la yiraahdaa maskiinta waxaa laga yaabaa inaad ka afdheer tahay oo ka afmishaarsan tahay laakiin tana la isku dhaafay naag walba oo fariida gurigeeda waxay ku dhaqanaysaa maskax waxay ku dhaqanaysaa karti waxay ku haysataa ninkeeda ma aragta aqli horena u sheegay ragga wasaa u rabaysid ragga wasaa adi ula macaamushid markaa runta aynu isku sheegno dumar yahow dad waxaa jiro oo ma aragtay iska nacnacleynaya nacnacnimada faraha badan ma wanaagsano qoysaska ha laga dhammaado ma aragtay hadalna meel daloolkaama galayo keep going ayaan leeyahay gabar walba oo qoyskeeda habi ku ah gabar walba oo ma aragtay nolosheeda habi ku ah gabar walba soomaalina waxa weeye dibdhacay leedahay horudhac ma lahan dadka ma yiraahdaan keep going dadaad kula yaabay markay maasha allah lagu soo qoro mise gabadhii maasha allah tiraahdaa maxaad ugu qoraysaa maasha allah inkaar qabtadan maxay inkaar ku leedahay maxay ma aragtay dhaqan dumis ay ku tahay just waxa weeye nolosheeda oo perfectiga ah ayay ku tusaysaa intaasaa jalaska tahay
nolosheeda saxda ah ay ku nooshahay oo aadan helayn ayay ku tusaysaa soo maahan taasaad jealous aad ka tahay taasaad ka xun tahay yaahu allahuma najeenaa xasadka allahuma najeenaa dadka xunxun ilaahayo naga qabo dadka xunxun isha bini aadamka xasadka allahayo naga qabo ilaahaan ka hoos galnay war 22 sanaan guri leenahay from the beginning maalintii la isoo aroosay hadhicin jaban liyiri liigu bilaabay up to now anoo qof weyna oo 40gii kor u dhaafay ayaa aad u jeedaan si beebey yar oo kale liida dhacsanaya I hope insha Allah inta nolosheeda ka dhimanna in ma aragtay saas aan jeclahay inaan ku dhamaysto nolosheeda gabar walba anay la midana qofna ha u daba joogsan qof walbana wixii adiga aad rabtid kula soo gudboonaado samee social media qof kula ma lahan soo qofkaas u soo galo ayaa adna u soo galaysaa soo qofka u samaystay ayaa aad u samaysatay soo wax u soo gelinay ayaa adna u soo gelinaysaa waayo aragnimada uu leeyahay ka badanaa leedahay aqoonta uu leeyahay ka badanaa leedahay Soomaaliya qof bini aadan ha u daba fadhiisan gabar yahay naag yar oo xun oo afka ka nacnac leh oo hadalkii ka batay ha u daba fadhiisan hal isxaq dhooro Soomaali way baaba'day mujtamacii Soomaaliya wuu baaba'ay wuxuuna ku baaba'ay waa jealous waa xaasidnimo dadka hal iska amaan geliyo yar iyo weyn saasa loogu dhagan yahay islaan cireysatay iyo oday cireystay saasa loogu dhagan yahay gabar yar hadda gurigeeda samaysatay oo ugub asaasa loogu dhagan yahay Soomaaliya ilaahay in soo hadeeyo ilaahay ma aragtay dhibaatadii xanuunkan in haayaan wax kale ma oran kare xanuun baa in haayo dadka ka dhamaada alxamdulillah ku dhaca dadka ma sha Allah ku dhaca dadka don't be jealous xaasidka ma fiicno war xaasidka quraanka lagu sheegay xaasidka ma fiicno wax ma aragtay oo wanaagsan ma sha Allah dheh maxaa u diiday Soomaali inay ma sha Allah tiraahdo war waxaan ma ku cajabo waaye ishaada qabatay adoonan hadlin adoonan cayaarin adoonan caynin adoona boodboodin get lost ka bax page-kiisa dhan uga bax qofka marka hadal gunaanadkiisa waxaan rabay intaas yar inaan inila wadaago waa inay wada salaamo asxaabay kole mulki ma dhaafayso waano iyo hadal iyo ma aragta canaan dadkayga waxa weeye ilaahay iga beeray dadkayga ilaahay ma aragtay saasna qadarkaas ku dhacay oo saasu ilaahay oo u gartay waxa bayaraatay aan ka bedeli karno oo ma aragtay jiilka soo socday generationka soo socday inay ka bedelaan ma ahan ma aragtay waxa kale dadka iskugu qasan laba shay marka la leeyahay qofkan waa dayus mise qofkan waa wasaq mise qofkan naagtiisa kama adko ma aha naagtaada inaa abused markay ma aragta habiga ay tahay naagtaada inaa abused markay habiga tahay ma ahan Soomaalida marka lagu leeyahay dayus waxa ku qarsoon waa dibudhac oo dumarka lagu haayo waxa weeye naag oo happy ah lama arki karo ragii liskala soo dhaaf doqon oo candaba director ah oo waxa weeye waxaan ka wadaa oo naag ah oo maskiin ah intay walaasheed difaaci lahayd ay ma aragtay ay oran lahayd keep going ayay meesha la soo fadhiisanaysaa waxaan waxa qabo waa dayus maxaa dusha ka saaraaday haduu dayus yahay that's not your business labada soomo is qabaan guriga u xiran waxay yihiin ba iyaga soomo isku qanacsano waxay yihiin ba ma aragtay adimaad kala xisaabtami mise ilaahay kala xisaabtamayo Soomaaliya ilaahay laga boqo ilaahay loo noqdo doon waxa wada saaran tihiin oo saabada uu haabayso ilaahay ni soo wada hanuuniyo Allah ni soo wada hanuuniyo wax kale ay raahdo ma lahan wayna wada jeclaa asxaabtayda daawasho wacan
meel walba aan joogno saahan iskula soconno insha allah iyo kulanti dambe oo xiiso leh waxaan igaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo mashquulkana ha la iska dhaafo dadka waxa weeye Soomaali inakaa isku ah ma aragtay ehel inakaa isku ah qaraabo inakaa isku ah asxaab inakaa wada dhalanay Soomaali waxa wanaagsan inay istaageerto ma ahan inay gadaal isku dhigto qoysaskana ha laga dhamaado say doonaa ha u dhaqmaan sidaa iyo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته